ayaa ku yimid ganacsiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib markii uu gaabis noqday doorashada goboleedka Galmudug. Mana fod exelma si ay rabay. bil ka hor waxaa si weyn u camirnaa hoteelada iyo goobaha ganacsiga ee dadku isugu yimaadaan balse waxaa saameyn ku yeeshay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Sunna wal Jamaaca. waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlaya hoos u dhaca ku yimid adeegyadii ganacsi. hadda suuqani oo suuqa iyo siyaasadda oo isku xiran yihiin siyaasaddu marka hoos ay aado suuqa asuna hoos u aadiyaa because waxa yaraanaya socodka magaalada iyo dhaqdhaqaaqa magaalada iyo bulshada meel waa yaraanaya marka oo siyaasaddu ay kacsan tahayna suuqa waa kacaya asuna oo karbo aadiya maalmahan dama waxa dareemayna suuqana waxa way hoos u jiraan dareemayna waa jirtaa meesha doo ama khilaaf ka dhaco ama xoogaa ka dhaco dadku inuu si xoogaa u himad jabayo ama hada qofkii wax gadan lahaa oo dadka meesha u badan waxay u yimaadeen dad marti oo waxay ahaayeen doorashooyin wax u socdo qof kasta ugu bato qofka wax gadanayo waa qof ama xamar ka imaaday ama gobol kale ka imaaday inta badan dadka waa garan kartaa waa saameynaysa 100% ku dhawaad ama 100% aan dhahna 80 meelahaas waa culays ku imaada dadka gaar ahaan Somali Cable TV haddaan ka hadlo ganacsiga iyo habsamida uu ku socdo sida uga dhaceen isbedelada magaalada caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug wallahi markii la fiiriyo ganacsigii hore iyo ganacsiga hadda sida uu yahay farqi weyn ayaa u dhaxeeya inkastoo aanan dhigi karin labada ganacsi wax weyn oo ku kala duwan yahay hase yeeshee dhaqdhaqaaqa magaalada markii si loo fiiriyo waxaad leedahay magaalada waa soo kobcaysaa maahan oo kaliya in dib u dhac ku yimid doorashada Galmudug ay saameysay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi balse waxa moral jab uu ku riday dad badan oo rajo ka qabay inay arkaan nidaam doorasho oo cadaalad ku saleysan istada markii loo eego deegaanka dukaamada meelaha lagu ganacsado kaleeto hoos u dhac weyn ku yimid waliba mid la taaban karo dabcan waxaan u malaynaa waxna saameeyay isku dhaca siyaasadda iyo deegaanka isbedelka hadba sidii jawiga noqday xarjeynina laakiin jawiga isbedelo siyaasadda isbedesho dadku deegaanka dib ugu soo laabtaan ganacsigu isbedelo insha Allah hadii la yiraahdo laakiin saameyn weyn baa jirta oo xagga nooga timid suuquna isku bedelay dadkuna deegaanka xataa hoos u dhac weyn ku yimid sida shaqooyinkii kale xataa inay xataa cariiri galeen oo siyaasadda saameysay bahda Somali Cable soo dhawaada oo dhownahay anaga xarunteena ganacsi maadaama noogu timaadeen oo aan wadin bulshada ganacsiga u dhaxeeya kobaca 3 bilood ee la soo dhaafay sidoo ganacsigu ahaa iyo kan hadda law sidoo yahay ma sha Allah magaalada ganacsigeedu 3 bilood ee la soo dhaafay si xooliyo ku socday maadaama bishii hadda u dambeysay xoogaa khilaaf yarna jirna ay wax yar oo tashuus oo kala dhaxgal maamulkii laakiin hadda magaalada sida ganacsiga sidii hore ku soo noqday ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada ku sugan heykal weyn iyo muuqaal weyn hadda galiyeen marka laga reebo tabeelayaal xayisiis oo ku yaala wadooyinka Dhuusamareeb dhinacyadooda ma jiro musharax qura oo ku sugan xilligan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana maqnaashahooda loo sababeynaya inay cabsi ka qabaan dhaqaalihii ay doorashada ugu tala galeen inuu ka dhamaado in aan la ogeyn habka ay doorashadu u dhici doonto. Somali Cable TV